kusoo dhawo Fan Academy haddaad nagu cusubtaa fadlan subscribe leh kadibna furo gambaleelka si muuqaal kasta aynu soo gelino kugu soo dhaco isla marka aynu soo gelino. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Ma jeclaan lahayd inaad ku barato luqadda Englishka si online ah adigoo gurigaaga ama goobtaada shaqo jooga? Haddii ay tahay jawaabtaadu haa, Akademiyadda Fahan waxay idin diyaarisay koorso dhammaystiran oo luqadda Englishka ah. Koorsadan waxay ka kooban tahay 3 level ama 3 heer. Heerka koowaad waa Basic English ee ugu talagalnay ardayda bilowga ah looga bilaabi doono ABC-da ilaa iyo meel fiican laga gaarsiiyo ardayga. Waa buug ka kooban 62 casharo video ah iyo buug PDF oo qoraal ah. Sidoo kale waxaynu idin diyaarinay Spoken English oo ah heerka labaad. Spoken Englishka waxaynu ugu talagalnay ardayda heerka dhexe ama heerka sare ah. waa buug ka kooban 102 casharo video ah iyo buug PDF ah. Buuggan waxaad ku baranaysaa ku hadalka luqadda Englishka. Marxalad kasta aad ku sugan tahay wixii aad ku hadli lahayd ayaad ku baranaysaa. Sidoo kale waxaan idin diyaarinay naxwaha guud ama General English Grammar oo aad ku baran doontid naxwaha luqadda Englishka oo dhammaystiran. Haddii aad danaynaysid inaad ka diiwaangeliso koorskan online-ka, fadlan la xiriir WhatsApp number-ka shaashada kaaga muuqdo si lagu siiyo macluumaad dheeraad ah iyo casharo tusaale ahba. Talking about languages. cashirkan waxaynu kaga hadli doonaa luuqadaha. Dialogue 1 wada sheekaysiga koowaad. Do you speak English? Ma ku hadashaa Ingiriiska? Yes, I speak a little English. Ha, waxaan ku hadlaa a little English. Ingiriis yar ayaan ku hadlaa. Does your friend speak English too? Saaxiibada may ku hadashaa Ingiriiska? Too sidoo kale. Yes, ha, she speaks quite fluently. Ha, waxay u hadashaa si fasax ah oo dhammaystiran. Quite waa wax dhammaystiran, si buuxda. Fluently waxaa la yidhahdaa si fasax ah aan hakad lahayn. Qofka luqadda u hadla fluent. She speaks quite fluently. Ha, si buuxda oo fasax ah ayay u hadashaa. It's her native language. Waa luqadeeda ay u dhalatay ama luqadeeda hooyo, native language. How many languages does she speak? Imise luqadood ayay ku hadashaa? I think waxaan u malaynayaa she speaks inay ku hadasho more than 5 languages. In ka badan 5 luqadood. More than in ka badan 5 languages, 5 luqadood. Dialogue 2 wada sheekaysiga labaad. Do you speak English? Ma ku hadashaa Ingiriiska? Not very well. Si fiican uguma hadlo. I speak a little English. Waxaan ku hadlaa Ingiriis yar. Do you know many words? Erayo fara badan ma taqaanaa? Words erayo. No, maya, I don't. Ma garanayo. Only some important words. Kaliya waxaan garanayaa some xoogaa important words ah. Erayo muhiim ah. Important muhiim ah. Words na erayo. Dialogue 3 wada sheekaysiga saddexaad. Do you speak English? Ma ku hadashaa Ingiriiska? Yes, I speak English. Ha, waan ku hadlaa Ingiriiska. Do you speak it perfectly? Si sax oo fasax ah ma ugu hadashaa? Yeah, ha. It's my native language. Waa luqadda aan u dhashay. Waa luqadeeda koowaad. My native language. Waxaa first language. That's why I can speak it quite fluently. That's why. Taas waa sababta I can aan u awoodo speak it in ugu hadlo luqadda quite fluently. Si fasax ah. How many languages do you speak? Imise luqadood ayaa ku hadashaa? I speak waxaan ku hadlaa English, French, Arabic and Somali. Waxaan ku hadlaa luqadda Ingiriiska, Faransiiska, Carabiga iyo Soomaaliga.